jenaraal khaliif ciise mudan oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Puntland sanadka 2019 ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Baran ee xarunta gobolka Sanaag. musharax ayaa waxaa magaalada Baran ku soo dhaweeyay salaadiin, siyaasiyiin, ururada dhalinyarada iyo haweenka, ardayda jaamacadda Maakhir, ardayda dugsiyada waxbarashada ee degmada Baran iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran, kuwaas oo lulayay calamada Puntland iyo Soomaaliya. musharax khaliif ciise mudan ayaa mid u gacan qaaday bulshadii iyo mas'uuliyiintii soo dhaweynayay. musharax khaliif ciise mudan ayaa uga mahad celiyay bulshada degmada Baran sida ay u soo dhaweeyeen isaga iyo waftiga warkacayay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta qiimaha leh oo aad maanta qorraxda taagnaydeen oo na sugayseen. ilaahay baan idinka baryayaa inuu ajarkiisa idin siiyo, xasanaadkiisa. waxaanan noqonaysaa wax aanan ilaaweyn weligay intaan adduunka saaranahay soo dhaweynta lay soo dhaweeyey. waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. maanta waxaan ku faanayaa oo aan ku faanayaa in reer abtigay, reer ayeeyahay ay i siiyeen codkii oo igu taageereen. waa guul inoo soo hoyatay weeye, waa guul inoo soo hoyatay. ilaahay idankiis waa guulaysanaynaa, ilaahay idankiis waa guulaysanaynaa. maanta dhan baa qorrax taagnaydeen, waa is arkaynaa, waa kulmaynaa, waa idiin joognaa, waa sheekaysanaynaa, waa isxoga waraysanaynaa. wixii loo baahan yahay in loo qabto dalkaanna ninna i fari maayo. anaa og, anaa ka dhashay, anaa u dhashay, anaa aqaan baahidiisa, anaa aqaana. intaas kadib musharax khaliif ciise mudan ayaa waxa uu hoygiisa ku booqday suldaan siciid suldaan cabdisalaam, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay musharaxa iyo waftigiisa suldaan siciid suldaan cabdisalaam. salaan kadib waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa musharax khaliif ciise mudan oo ah musharax u taagan dowladda Puntland. marka aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladan iyo munaasabaddan. musharaxa uu inoogu yimi waan ku soo dhaweynaynaa, waana u mahadnaqayaa. kolbana waa la wada joogaa, wixii hadal oo dambena way noo harsan yahay. waana ugu ducaynaynaa musharaxa in ilaahay ku guuleeyo xilka uu musharaxa u yahay. waana soo dhaweynaynaa. wassalaamu calaykum. intaas kadib musharax khaliif ciise mudan ayaa waxa uu hoygiisa ku booqday suldaan maxamed suldaan xasan cali jibriil. suldaan maxamed suldaan xasan cali jibriil waxaana halkaas ku soo dhaweeyay musharaxa iyo waftigiisa suldaan maxamed suldaan xasan cali jibriil, suldaanka nabadda. salaanka bacdi waxaa sharaf noo ah guud ahaan haddaanu nahay deegaanka mandaqada Sanaag inuu maanta nagula sugan yahay gobolka, gaar ahaan magaalada Baran, musharax madaxweyne khaliif ciise mudan. waxaanu leenahay musharax madaxweyne ku soo dhawow deegaan nabdoon, dal nabdoon. waxaan kaloo kaaga mahad celinayaa booqashada rasmiga ah ee aad igu timi oo aad igu soo booqatay gurigayga. waxaan ku leeyahay jazaakallahu khayral jazaa. ugu dambeyntiina musharax khaliif ciise mudan ayaa waxa uu hoygiisa ku booqday islaan xuseen xaaji cabdisalaam, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay musharaxa iyo waftigiisa islaan xuseen xaaji cabdisalaam. waa ku faraxsanahay imaantinkiina, murashaxaagana waa ku faraxsanahay. waxaad tahay nin caana oo la yaqaan, ka dhashay dadka ummadda u dhaxeeya, abaal ku leh reer abtigiis, mudan in codka la siiyo. sidaa darteed waa ku faraxsanahay. waxaanu ku talinaynaa xildhibaanadana ku boorinaynaa kuna dardaarmayna in lagu siiyo codka si toos oo shuruud la'aan ah. xasan cismaan xasan dhigay TV-ga idaacadda dowladda Puntland Baran.